daawadayaal markale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ka gaarnay oo dhan waa qodobadii ugu dambeeyay wararkii caalamka oo dhan dabcan waa 13 December 2019 maalintii ugu dambeysay sanadka miilaadiga markaasi 2019 ka deebaydmo daawasha qiimaha leh wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinaha dhinaca caalamka oo dhan ayaa idin haynaa alaabana hurfur media daawasha qiimaha waxaad kala socotaan wararka ugu dambeeyay hadii ay baydmo anagoo dunida ay ku xidhna isla markaana inaynu nahay markaasi ila wareedka ugu weyn ee dunida iyo Soomaalida isku xidha wararkii ugu dambeeyay caalamka dhan daawasha qiimaha leh soo ururina ujeedkuna wuxuu yahay inay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan aynu ka qabtirno wararka ugu dambeeya ee caalamka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda teknolojiyadda caafimaadka iyo waliba warar kala duwan daawasha qiimaha leh si aynu markaasi wacaal hubaal iyo xogo waaweyn aynu ugu yeelano galaangalka dhinaca adduunka iyo sida uu socdo siyaasadaha dunida iyo wararka ugu dambeeya sidoo kale daawasha qiimaha leh waxaan xoog saarnaa wararka caalamka islaamka iyo dunida islaamka si aynu markaasi u hoga tusaaleeno halka xaaladda dunidu maanta ay marayso iyo waliba siyaabaha kala duwan ee dadku isku markaasi riixayaan haday tahay in la kala tagay iyo haday tahay dabcan in markaasi ay la tartamayaba halka nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinaha cabdilbasiid gaan dunida oo dhan daawadayaal aan ku bilaabay isla markaana ugu horeysiyo qaybtan ra'iisul wasaaraha Yahuuda Netanyahu ayaa isaga oo baashaaraya isla markaana qosol aad u badan qoslaya ayaa waxa uu soo saaray nin blocker ah oo bogaha yaryar ee wax lagu qoro laakiin bartiisu ay caan tahay wax ku qora oo leeyahay Maxamed al-Saud ama Maxamed Saud oo aad u taageersan Israa'iil waliba Yahuud ahaan dadka ma aha inuu shakhsi ninkan u taageero dadka Yahuud ah ee Israa'iiliyiinta ayuu aad u taageera kadibna waxa barta live-ka toos u soo galiyay Mr Netanyahu maalin kadib markii uu ka guuleystay dagaalkii dhinaca uu ku doonayay in uu hoggaanka xisbigiisa Likud laga faramroojiyo balse isagu uu ku doonayay inuu ku guuleysto akhriga ku guuleystay ninkan ayaa waxa markii uu khadka telefoonka u soo galay qaybta FaceTime-ka uu ku soo wacay waxa toos barta Facebook-ka ku xidhay Netanyahu ujeedka uu ka lahaa inuu dadka tuso ninkaasi sida uu taageersan yahay ama dhacsan yahay waxay mid siyaasadeed isla markaana inuu dadka Yahuuda uu dareensiiyo in uu is ogoleysiiyay si kastaba ha noqotay dad Carbeed oo asaga u jaameynaya isla markaana qof ahaan u taageersan Israa'iil dad ahaan u jecel waxaana ujeedku uu yahay ayaa la yiri mid siyaasadeed oo muujinaya inuu guul siyaasadeed ka gaaray inuu furfuray Israa'iil isla markaana dalalka ay ka mid tahay dalalka ugu kaknaa ee aadka u diidanaa isla markaana in badan aan ogolaa jirin in ay wax cilaaqaad ay yeeshaan haatan ay soo wacayaan barta FaceTime-ka ayuu ku soo wacay ninkan isla markaana wuxuu ku salaamay salaanta islaamka ee kaliya loo galiya in dadka muslimiinta ay isku salaamaan isla markaana uu ducada xambaarsan asaguna waxa uu kaga qaaday salaanta si kastaba ha noqotee waxa uu yiri waxa aan rabaa inaan kuugu hambaliyeeyo guusha aad gaadhay Ilaahay ha ku barakeeyo ayuu ku yiri Yahuudkii sidoo kale waxa uu sheegay in uu shaqo aad u wanaagsan u qabtay wuxuuna yiri hadii ay suurtagal ay ahaa lahayd oo aan ku jiri lahaa xisbiga Likud waxa aan noqon lahaa ayuu yiri mid adiga ku codeeya hadaa tahay Netanyahu laakiin Netanyahu ayaa ugu jawaabay oo yiri adigu muwaadin ma tihid oo macnaha ma codeey kartid marka ay noqoto inaad aniga iyo codeyso waxa sidoo kale halkaas isqabsaday sacab iyo waliba markaasi damaashaad kadib markii carabku uu hees ku dhuftay isla markaana hees Yahuudeed uu ugu dhuftay dhinkaasi oo markaasi Yahuudka uu heesay ama uu u buraanburay si kastaba noqotee arintan ayaa waxa ka dhalatay cara aad u baahsan oo caalamka islaam gaar ahaan dad badan ayaa arintaas baraha bulshada kaga hadlay dad badan ayaa ku eedeynaya in dadka qorayaasha iyo dadka qaar kood ee dawladda ku jira ama agdhow ama taageersan Maxamed bin Salman ay jacaylo waaweyn u qabaan haatan Yahuud ayagoo sheegay in ay caadiyeynayaan in dadka muslimiinta loo arko in ay jecel yihiin ninkan waxyaalaha la yaab kale uu sameeyo leeyahay Maxamed Saud waxa kamid ah in bartiisa Twitter-ka ay ugu qoran yihiin 3 luqadood luqadda Carabiga Ingiriisiga waa magaciisa marka la eego oo Maxamed Saud ugu qoran tahay iyo magaciisa kale magaciisa oo af English ama Ingiriisi ahaan ugu qoran Maxamed Saud ah iyo waliba isagoo af Yahuudi ah ugu qoran yahay taasoo muujinaysa ayaa la yiri in uu jacaylka uu qabo Yahuuda iyo Netanyahu uu jacayl dhaafay balse blogger-ka uu ka yahay wax ku soo qorana wuxuu inta badan ka hadlaa in ay lama huraan tahay in Israa'iil la heshiiyo hadii carabta ay doonayso nabad halka nagala socotaan daawasha qiimaha leh waa wararkii ugu dambeeyay warbixinaha cabdilbasiid ee cudurkii loo yaqaanay SARS ee darnaa ee xumada faraha badan watay ayaa isaguna si daran uga dilaacay dalka Shiinaha dhaqaatiir Shiina ah ayaa waxa ay sheegeen in cudurkan uu si xoogan haatan uga dilaacay magaalada bartamaha ku taala ee Wuhan ee gobolka Hubei ee bartamaha dalkaasi kaasoo la sheegay in uu dad badan soo ritay sida uu ku soo waramayso TV-ga dawladda ee CCTV la yiraahdo
iyadoo la sheegay in dawladdu ay amar ku bixisay in halkaasi dhaqaatiir khibrad sare leh loo diro si loo ogaado hubintina loogu sameeyo xanuunkan oo ilaa iyo 27 bishan ama 40 maalmood ugu dambeeyay halkaasi ka soconayay si xooggan u dilaacay 27 qof in ka badan ayuu soo ritay xanuunka iyadoo la sheegay in 7 kamid ay xaaladoodu daran tahay 20 kamidana ay xaaladoodu isugu jirto kuwa dhexdhexaada iyo kuwa ladan si kastaba ha noqotee dawladda dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in ay arintan ay si xooggan u baadhayso waaxda dhinaca caafimaadka dalkaasi Shiinaha ayaa waxa ama guddiga caafimaadka ee heer qaran ee the National Health Commission ayaa waxa ay sheegeen in dadkan ay dareen yihiin khubaro ku takhasusay in xanuunada noocaas laga hortago hadda ka horna xanuunkan 10 sano ka hor markii uu dunida ka dilaacay ayaa hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxa ay ku cambaaraysay dawladda dalka Shiinaha in ay qarisay dad badan oo xanuunka uu ka laayay oo boqolaal gaarayay haatan waxa la sheegay in xanuunku uu u muuqdo mid sii faafaya 2003 ayuu xanuunkan markii ugu horeysay ka dilaacay deegaano ay ka mid tahay Hong Kong iyo Shiinaha iyo dhulweynaha Shiinaha iyadoo markii dambana dad aad u badan ay ku dhinteen waxa la sheegay in boqolaal qof ay Hong Kong ku dhinteen halka dhulweynaha Shiinaha ay boqolaal kale ku geeriyoodeen dawladda dalka Shiinaha ayaa waxa xanuunkan uu ku soo beegmaya iyadoo dhawaan ay sheegtay in ay doonayso in ay wax ka bedesho erebixinta dhinaca fasiraada aayaadka quraanka kariimka ee luqadda Shiinaha Hanka ku qoran warbixintii ugu dambeysay sanadkan lagu gabagabeeyay xaaladda dadka muslimiinta ee Uguru ayaa la sheegay in ay dhibaatada dadkaasi Uguruska haysta aysan ahayn mid ku kooban oo kaliya cadaadiska dawladda warbixin uu soo daabacay wargeyska leeyahay Foreign Policy dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu xog badan ku ogaaday in dhibaataynta dadka muslimiinta ay ka soo bilaabatay sanadihii ugu dambeeyay oo dhan dadka deegaanka gaar ahaan dadka luqadda ama u dhashay Hanka la yiraahdo kuwaas oo luqad ahaan dadka u cadaadiyay waxaana la sheegay in marar badan dadka la gacan galay dadka Shiinayska ayaa la sheegay in dadka muslimiinta u arkayeen inay yihiin dad shisheeya oo aan wadanka u dhalanin waxaana taasi ay dhalisay ayaa la yiri in ay dawladdu cadaadiskeeda u gaaro kadibna ay dawladdu dadka sii cadaadiso dadka Shiinaha ayaa la sheegay in 2014 intii u dhaxaysay ilaa 2016 ay dadkan cadaadis xooggan ku hayeen dawladduna ay bilowday inay cadaadiska saarto ilaa 2017 haatan Foreign Policy warbixinta wuxuu ku soo bandhigay in cambaaraynaha kala duwan ay cunaqabataynaha markaasi dhitinaysa ee Mareykanka uu ku kaliyeystay aysan wax weyn ama nabarkaasi uusan ka degin Shiinaha ayadoo ku baaqday in dawladaha reer Yurub iyo dawladaha dalalka caalamka Islaam ay u baahan yihiin in talaabo dheeriya ay Shiinaha ka qaadaan si loo dareensiiyo jawaabta laga bixiyay ayay yiraahdeen dhibaataynta dadka muslimiinta waxay sheegeen in wali goobihii dadka wax lagu ugu yeedhay dhaqan celiska ay wali sii socdaan sidoo kale wali waxa jira cabashada iyo tabashooyinka ku saabsan in la gacanta gaaleeyo qoysaskii ay ka tageen ayaa la yiri dadka ay xidhiidhay Shiinaha ayaa la sheegay in mabaadi'da ka kan ee markaasi ku saabsan dil la'aanta baalir uu doonayo inuu dadkaasi ku khasbo waxa la sheegay in wali gaagoontirka dhinaca ciribtirka diinta iyo dhaqamada ee la dagaalanka dadka waxyaalaha asaasiga u ah sida soonka salaada iyo waxyaalaha kale faraa'idka ah oo dhan ay dagaalkeeda ay sii baahinayso dalkaasi Shiinaha ayadoo la sheegay inay dhagaha ka furaysanayso dhammaan talaabooyinka la qaadayo dhawaanna culimo ka qayb gashay shir ka dhacay dalkaasi Kuala Lumpur magaaladiisa ku taal Malaysia ayaa waxay ku baaqeen in dadka muslimiinta loogu baaqay inay joojiyaan alaabaha ay ka gataan Shiinaha laajiga inay dareensiyaan in muslimiintu ay og yihiin dhibaatada ay ku hayaan dadka muslimiinta halka nagala soo taandabasha qiimaha leh waa wararkii ugu dambeeyay dalalka Isbaaniya ama Isbaanishka iyo waliba Mexico iyo Bolivia ayaa isku cunadooman dalka yar ee Bolivia ayaa doortay inuu labada dalba uu ka buriyo dhammaan diblomaasiyiintiisii dalkiisa magaalada La Paz ee xarunta dalkaasi shirjiraad oo ku qabatay madaxweynaha kumeel gaarka haweeneyda la yiraahdo Jeanine Áñez ayaa burisay dalka ka xayrisay saraakiishii diblomaasiyiinta dalka Mexico iyo laba kamid ah saraakiisha sarsare ee iyaguna dalkaasi Spanish kadib markay ku eedeysay in ay taageerayaan hogaamiyihii la buriyay ee dalkaasi ee Evo Morales kaasoo u cararay dalka Mexico haweeneyda ayaa waxay sheegtay in ay uga jawaabayso arintan ay tirifargelin dalkeeda lagu hayo ra'iisul wasaaraha Spanish ee dawladda socialistaha Pedro Sanchez ayaa asaguna wuxuu 72 saacadood u qabtay inuu saddexda sarkaal ee ka jooga Bolivia magaalada Isbaanishka caasimada u ah Madrid ay carraan isla markaan dalka ay kaga baxaan iyadoo xaaladda labada dal ay darsanayso dalkaasi ayaa tan iyo intii laga buriyay madaxweynihii waxa uu ku sugan yahay xaalad hubantilaan waxaana haatan ay dadka qurbad joogta ee dalkaasi ku soo noqday ay talada kala wareegeen mid kamid ah dadkii ugu horeeyay abid ee dalka ku dhashay isla markaan aan ka bixin ee haddana noqda madaxweynaha kaasoo haweeneyda ku tilmaamay inay khiyaamaysay isla markaan ay jigadii
ay ka halabsatay. halkan nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee dalka Turkiga waaxda dhinaca qalabaynta ciidanka ee horumarinta tiknoolajiyada dalkaasi ayaa iyaguna waxay ku dhawaaqeen in ay soo saareen noocii ugu dambeeyay ee adduunku sameeyo ee diyaaradahan ciidawadin oo loo yaqaan Aksungur ayay sheegeen inay tahay diyaaradii ugu dheeraysa ee haatan la soo saaray aan ciidawadin taasoo socod doonta ayaa la yiri 740 kilomitir oo ay saaran yihiin kaamarooyinkii ugu dambeeyay ee dunida isla markaana ku duulasa xawaarihii ugu badnaa. waxayna sheegeen in horaanta toddobaadka soo socda ama bartamaha bishan Janaayo lagu hubin doono ciidanka qalabka sida dalkaasi sida uu sheegay madaxa guud ee shirkadaasi TAI la yiraahdo ama Turkish Aerospace Industries loo soo gaabiyo TAI ee la yiraahdo Tamil Kotil. Mr. Kotil war qoraal soo saaray uu mariyay wakaalada Anadolu Agency ayuu wuxuu ku sheegay in Aksungur ay tahay ayuu tii ugu casrisaneed ee diyaaradahan ciidawadin ee la doonayo in lagu rakibo ama la geeyo furimaha dagaalka iyo lagu qalabeeyo ciidanka qalabka sida. sidoo kale waxay sheegeen in ay jiraan dalal durba kala horarsanaya oo soo dalbaday qalabkaasi si ay ugu caawiyaan ama ugu taageeraan ciidankooda qalabka sida. warka qoraalka uu soo saaray wuxuu kale ku sheegay in dawladda dalkiisu ay haatan cilaaqaadyo dhow la sameysay dalal badan oo caalam islaam ka tirsan oo doonayeen hubka ka iibsadaan 200 kilomitir ayay tii hore gaari jirtay noocan ahayd ama modelkan ahayd ayuu yiri laakiin modelkan cusub waxa uu gaaraya 750 kilomitir. waxayna sidataa kaamaro aad iyo aad loo horumariyay oo sawiraysa ayaa la dhul aad uga fog halka ay diyaaraddu ku duulaso. sidoo kalena waxay tiigsan kartaa cadawgeeda iyadoo markaas laga maamulayo meel ka fog halka ay dhibaatada ka geysanayso. waxa uu sheegay in dawladda dalka Turkiga ay guntiga dhiisho uga xidhatay qalabaynta iyo waliba hagaajinta. wuxuuna la yaab ku tilmaamay in diyaaradan qalabka lagu sameeyo dhan 100% gudaha dalka laga soo saaray oo aysan jirin waxay dibadda u doonteen. arrinta ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dhawaana baabuurtii ugu horeysay casriga uu dalka Turkiga uu meel mariyay isla markaana uu soo saaray. madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna waxa uu asaguna uu dhibaato xoogan markale kala kulmayaa telefoon toddobaadkan dhacay oo uu qariyay oo kula hadlay dhigiisa dalkaas Russia Vladimir Putin. inkastoo wali aan ceebta rasmiga ah ee telefoonka la sheegin haddana labada dal xaaladoodu kala korjeegaystay isla markaana xaaladoodu ay sii xumaatay hadday tahay dhinaca tartanka hubka nuclearka hadday tahay dhinaca diblomaasiyadda iyo meelaha isku haystaan iyo hadday tahay taageerista ayaa la sheegay horta inuu daarnaa kadib markii sirdoonka Mareykanka ee CIA da la yiraahdo ay u digeen sirdoonka dalkaasi Russia uga digeen baa la yiri weerar ka dhici lahaa St. Petersburg magaalada la yiraahdo ee dalkaasi Russia ee loo dalxiis tago oo la sheegay inuu noqon lahaa weerar ay qaadaan kooxo wax qarbada sida uu qorayo wargeyska ama warbaahinta CNN-ka dalka Mareykanka. waxaana la sheegay in khadka telefoonka ay ku wada hadleen labada hogaamiye kuwaas oo wada hadlayay baa la yiri muddo saacad iyo jarjara. waxaana la sheegay in waxa laga wada hadlayay shaki uu ka dhashay kadib markii aqalka cad uu diiday inuu war qoraal ka soo saaro. labada hogaamiye waxa ku wada hadleen inta badan hogaamiyaasha dalalku marka ay khadka telefoonka ku wada hadlaan waxa laga soo saaro war qoraal gaar ahaan labada dal ee isku wanaagsanayna waxa la tafqiya tiraabaa leeyay dhamaan eray wix lagu wada hadlay sida dalalka dimuqraadiyaddu ka jirto loogu qanciyo dadkooda loona ogeysiyo waxa dhacay baa lagu sheegay warbixinta sidoo kale waxay sheegtay in arrintan ay ku soo beegmayso iyadoo cilaaqaadka labada dal ee Russia iyo Mareykanka uu darsanayo. sidoo kalena ay jirto ayaa la tuunka iyo raad gurista lagu hayo madaxweynaha dalka Mareykanka ee qadiyadiisa hadarta ay taalo aqalka Congress-ka iyagoo ilaa hadarta ku dhagan inay gudbiyaan qaraarkii ay ka gaareen madaxweynaha inay xilka ka tuuraan oo ay wali wada hadal kula jiraan isla markaana isjiid baahsan uu ka jiro aqalka Senate-ka dalka Mareykanka. wararka kale ay sheegayaan wararku in laga yaabo in khadka telefoonka uu qayb ka ahaa Robert O'Brien oo asagoo ah ninka amniga qaranka madaxweynaha kala taliya dalka Mareykanka isla markaana la sheegay in uu yahay nin lagu kalsoon yahay marka ay timaado in la ilaaliyo arrimaha dalka Mareykanka gaar ahaan arrimaha qaranka ama la bixin sirta Mareykanka. dhowr jeer ayaa madaxweynaha Mareykanka lagu eedeeyay in uu u dabacsan yahay dalalka qaarkood oo ku jiro ruush. intaan ku joojo tan iyo inta sarki doono hadii ay baydmo warar iyo warbixino waaweyn horfadhi media kala socon doontaan amaana Allah.